lan marka hore like saar kadib subscribe dheh kabacdi gambaleelka furo si aad u hesho waxyaabaha aynu soo dhignay kuwoodii ugu dambeeyay mahadsanid bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu daawadayaasheena ku xidhan channelkan Ismaaciil Caqiila maanta kusoo dhawaada qisooyinkeena maalmaha ahaa ayaan halkan idinku soo gudbinayaa biidnillaahi alkariim maantana waxaan kusoo qaadan doonaa hadduu rabbi weyne raali ka noqdo insha allahu tacaala waa kuma geesiga islaamka caanka ka ahaa ama muslimiinta caanka ka ahaa maxay naanaystiisu ahayd yaase u bixiyey goormuu dhashay geesiga islaamka geesu ku dhashay mid ka mid a dagaaladii uu ka qayb galay iyo tirada muslimiinta iyo gaalada dagaalkaasi ayaan maanta hadduu rabbi raali ka noqdo halkan aan idinkaga warami doonaa ka hor intaan barnaamijka guda gelin fadlan walaalaha ku xidhan channelkani Ismaaciil Caqiila waxaan idinka codsanayaa inaad subscribe saartaan si ay u noqoto dhiirigelin insha allahu tacaala sidoo kale ha ka ilowina like-ta insha allah haddaadan ka helinna unlike dheh insha allahu tacaala taasi waxay tusinaysaa in channelka waxyaabaha aan soo dhigayo aad ka heshay inaadan ka helin ayay ka kala cadaynaysaa biidnillah haddaad ka heshay inaan warbixinada noocaas oo kale aan idiin sii wada ayay suuragelinaysaa haddaadan ka helinna waa warbixintaasi meeshay ku eg tahay ayay noqonaysaa balse aan gudagalno waa kuma geesiga islaamka ama muslimiinta caanka ka ahaa halkan ayaan idinkaga soo gudbinayaa aan ku horeeyo dagaalada uu ka qayb galay wuxuu ka qayb galay dagaalkii u dhexeeyay muslimiinta iyo Roomaanka ayuu ka qayb galay qofka aan idinka geesiga islaamka aan halkan idinkaga soo gudbi doono sidoo kale tirada dagaalkaasi muslimiinta waxay ahaayeen 3,000 oo ciidan tirada gaaladana waxay gaarayeen ee Roomaanka 300,000 halka 100,000 oo kamid ah ay ahaayeen carabtii wadada ka soo raacay sidoo kale maxaa lagu naaneysi jiray yaase u bixiyay naaneystaasi waxaa lagu naaneysi jiray sayfullah ayaa lagu naaneysi jiray waxaana u bixiyay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa u bixiyay mid ka mid a dagaaladii uu ku jiray ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ugu bixiyay haddaba qofkaasi waa kuma waa Khalid bin Waliid weeyaan Khalid bin Waliid waa sayfullah al-masuuli ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ugu magacaabay wuxuuna ka soo qayb galay ama wuxuu ku dhashay Khalid bin Waliid wuxuu dhashay sanadkii 584 ilaa iyo 684 rasuulka ayaa ku naaneysay sidaan hore idinkugu sheegay sayfullah al-masluuli isagoo ka soo dagaalamay meelaha kale ah Sham Rome Faris iyo meelo kale oo aad u badan waxaana uu markuu dhintay waxaa lagu duugay Khalid bin Waliid magaalada Himis ee Suuriya waxaana uu furtay meelaha uu furtay kamid ah Ciraaq iyo Sham insha Allah ta'ala barnaamijkeena maanta intaas ayaan ku gabagabeynaynaa biidnillaahi albaari inta barnaamijkan midkiisa xiga aynu ku kulmi doono waa walaalkiin Ismaaciil Caqiila oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadiino nooli kulanti dambe oo xiiso leh فشدوا الوثاق لنحيي الرخاء وكونوا على العهد نجني ثمارا ونغرف منا بعنا بارتواء قلوب كنقش الغيوم تنامت وفي إثرها الغيث يهمي سقا فيا رب بارك لقاءاتنا وزد حين نرسو بشط الوفاء